barnaamijka waxaynu idinkugu soo gudbinaynaa dhowr qodob oo muhiim ah xilli Israa'iil ay duqeymo ku hayso Gaza oo maantaba dhowr meel ay duqeysay ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu taagan yahay waxaynu baaritaan ku sameynaynaa Israa'iil inay jabisay xabad joojintii iyo in kale hadalkaas oo dood fara badan dhaliyay Falastiiniyiinta oo aad uga falceliyay sheekadaas haddaba tafaasiil ku saabsan xaaladda guud ee Gaza iyo wararkii ugu dambeeyay waan idin hayaa magaalada Dooxa ee dalka Qatarna waxaa ka furmaya kulan markaasi looga hadli doono ciidamada dalalka doonaya inay geeyaan Gaza ciidankaasu sida ay hawshoodu noqon doonto iyo waxa laga doonayo inay sameeyaan haddaba maanta Talaada ayaa la sheegay kulanka inuu ka furmayo magaalada Dooxa tafaasiisha ku saabsan kulanka iyana waan idin hayaa qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaan idinkugu hayaa madaxda Yurub qaarkeed oo ay warbaahinta Yurub sheegayso shacabkoodu inay ugu baaqayaan inay u diyaar garoobaan dagaal ay la geli doonaan Ruushka haddaba cabsi soo food saartay markale reer Yurub ayaan idin haynaa xilli Ukraine arrinteeda xalkeeda lagu jiro qodobadaas aynu barnaamijkeena galabnimo asxaabay ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirno wixii warar ee soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii labaad waa barnaamijkii galabnimo maanta Talaada aan idiin soo gudbinayo haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xaaladda magaalada Gaza sidaad la socotaan Gaza xaalad aad u adag ayay ku jirtaa marka laga soo tago duqeymahan iyo waxa kan roobabkii da-ayay shalay ilaa xalay ilaa ayaa hadda waxaa la sheegayaa in dadku saameyn weyn ay ku yeesheen teendhooyin badan ay burburiyeen meelo badanna biyuhu ay fadhiyaan iyadoo hay-adaha samafalkuna ay ka dayrinayaan xaaladda bani-aadamnimo ee halkaas haddaba marka qodobkaas waa halkaas iyadoo dadka ay dhibaatada ku jiraan oo roobabkan iyo biyahan ay la tacaalayaan ayay maanta Israa'iil mar kale haddana qaybo ka mid ah marinka Gaza duqeyn ugu dhaqaaqday dad ayagooba allow sahlatooda haysato oo yaaban haddana duqeyna ugu dartay anida tusoo wararkii ugu dambeeyay waxaa leeyahay ciidamada cirka Israa'iil ayaa waxaa la sheegay inay duqeyn cirka ah iyo madaafiicba u adeegsadeen bartilmaameedyo ku yaala marinka Gaza oo ay markaa weerareen haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay ciidanka Israa'iil ayaa saakay oo Talaada ahayd waxay mar kale weeraro ku qaadeen iyagoo isticmaalaya dhinaca cirka iyo madaafiic dhulka laga ganayba dhowr goobood oo kala duwan sida bariga marinka Gaza iyo deegaano kale oo ku dhow halka ay joogaan ciidamadooda oo ay sheegeen inay duqeeyeen haddaba arrinkan ayaa waxa uu qayb ka yahay jabinta xabad joojino isxigxigay tan iyo markii heshiiska xabad joojinta la gaaray 10kii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay diyaaradaha Israa'iil ayaa weerar dhinaca cirka waxay ku qaadeen goobo kala duwan sida bariga Gaza iyo deegaano kale oo Gaza ku yaala sheekadu marka mar waxay duqeynaysaa meeshay rabto mar waxay bartilmaameedsanaysaa gaari uu la socdo nin mas-uul aan raadsanaynay dhehen waa ku dhufanaynaa madaxdii aan ka dilaynaa mar wax alla waxaan rabnaa samaynaynaa ayagoo intaa samaynaya ayaa haddana waxay ku dhahayaan xabad joojintii waa ilaalinaynaa la socda xabad joojin maxaa la yidhahdaa ilaa Falastiiniyiinta maxaa la dhahaa xabad joojin ninkaas wax kastana soo weerarayo madfac dhulka ka soo riday nagu garaaca diyaarad nagu garaaca dadka bartilmaameedsana maxay tahay leeyihiin xabad joojinta kale u yaqaano maxaa waay maba fahmin ayadoo marka lala yaaban yahay Israa'iil oo leh xabad joojintii waa ku jiraa dadkiina waa garaacayaa ayaa ninkii wareersanaa odagii Trump ahaa ayaa sheekada haddana sii dhabqiyay oo dadkii wuu ka yaabiyeyba haddaba aan idin tuso telefishinka la yiraahdo Sky News ayaa soo saaray warbixin Trump wuxuu leeyahay hadda waxaan baaritaan ku haynaa Israa'iil inay jabisay xabad joojintii iyo in kale Gaza
haddaan baaraynaa waxaan marka baaraynaa israa'iil inay jabisay xabad joojintii iyo in kale oo maxay tahay waa maalin walbay garaacaysaa xabad joojinta kale maxay marka falastiiniyiinta waxay leeyihin odagaan qawaarka ah iyo ninkan kale meesha fadhiya netanyahu waa is ogyihiin dadkan kale la ciyaarsiinaa ruwaayad loo jilaa ninka haddana dhaha waxaan baaraynaa inay israa'iil xabad joojinta ku xadgudubtay iyo in kale maxay tahay maxaa la baaraa saakaa noogu dambaysaa dheen waa kan nagta naga saaray marka meeshaan trump iyo netanyahu way u tashteen dadkan masaakiinta laakiin ilaahogooda ay leeyihiin dadkaas waaya qodobkaas halkaasaa kaga gudbaynaa weli waxaynu ku jirnaa wararkii gaza ee soo kordhay maanta oo talaadaha taliska dhexe ciidamada maraykanka waxay abaabuleen kulankaa waxaa looga hadlayaa arrimaha ku saabsan ciidamada dalalka usoo diraya gaza iyo ciidankaas shaqadiisu iyo waxa ay noqonayso iyo in hawshii lagu kala ogaanayo shirka waxaa laga dhigaa layidhi cabral internetkaas ayaa saraakiisha dalalka ilaa 42 dowladood ayaa ka qaybgalaysa waa la sharaxayaa marka waxaa soo bandhigaysa oo sharaxaysa shaqada ciidankaas cidda ay hoos tagayaan waxay qabanayaan ujeedadooda maraykankaas soo bandhigaya taliska ciidamada dhexe ee CENTCOM ciidamada lee magaalada dooxa dalka qatar ayuu kulanka markaa ka dhacayaa saacadaha soo socda marka waxaa laga dhigay cabral internetka haddaba sida ay qorayso wakaalada wararka ee Anadolu shirka caalamiga ay qabanqaabisay CENTCOM oo ah taliska dhexe ciidamada maraykanka ayaa talaadada maanta ah waxaa looga arisanayaa arrinta samaynta ciidamo caalami ah oo la geynayo gaza in la geeyo haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay taliska dhexe ciidamada maraykanka ee layidhaahdo CENTCOM ayaa talaadadan ku qabanaya shir caalami ah oo dhinaca internetka ah qatar ayaa lagu qabanayaa waxaana looga arinsanayaa ciidamada caalamiga ee sugaya nabadda gaza iyo ilaalinta xabad joojinta iyo hindisaha Trump sidii loo meelmarin lahaa qorshahaas hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa sheegtay in Washington ay shirka qaban doonto iyadoo ay ka qayb gali doonaan wakiilo markaa 40 dowladood ah marka waxaa leeyahay wakiilo 40 dowladood ayaa kasoo qayb galaya arrinkaa la sharaxaya ciidankaasu waxaa la iska rabo sida ay yihiin shaqadooda iyo waxa ay qabanayaan marka arrintaas iyaduna way taagan tahay oo halkaasuu maraya haddaba marka qadar xayisiisa kadib waxaan idiin hayaa warbaahintii Yurub oo bilowday inay sheegaan madaxda Yurub oo dadkooda ku leh u diyaar garooba dagaal ninkii Putin ahaa waa soo socdaa warkana wuxuu ku soo aadayaa xilli maraykanka iyo Yurub laftirkeedu ay ka shaqaynayaan nabadda Ukraine haddaba maxaa u muuqda madaxda Yurub oo ay ka baqayaan in uu Putin soo weeraro haddaba sheekooyinkii ugu dambeeyay arrinka oo xiiso leh ayaynu qaybta dambe ku faahfaahinaynaa xayisiinta kadib kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii labaad barnaamijkii galabnimo maanta waa maalinimo talaada haddaba barnaamijka waxaynu galaynaa qaybihiisii ugu dambeeyay arrinta Yurub iyo Ruushka iyo Ukraine waxa kala haysa ayaynu wax ka dhihi doonaa wararkii ugu dambeeyay haddaba warbaahinta Yurubiyanka ayaa waxay bilaabeen inay ka hadlaan digniino ka imanaya madaxda Yurub oo ay u digayaan shacabkooda shacabkii waxay ku leeyihiin u diyaar garooba dagaal qof walba wixiisa haabaysto raashinkiisa iyo wixiisa iyo dadka xageeba baa qaasiina baa guryaha ku yaala xagee la geeyaa marka waxay leeyihiin qartara soo socota ninka Putin la leeyahay xilli kasta ayuu dagaal ku soo qaadi karaa Yurub madaxdii Yurub ugu waaweyneed ayaa warkaas la hadlayay haddaba markaan idintuso telefishinka laga leeyahay Ingiriiska ee yiraahdo Sky News ayaa wuxuu qoray arrin uu leeyahay Yurub waxay ugu baaqaysaa shucuubteeda inay diyaar garow dagaal ay galaan
haddaba waxaa leeyahay marka arrinkaa maxaa keeni karaa oo loola jeedaa. haddaba waxaa la sheegayaa waqtiyadii ugu dambeeyey waxaa iska soo dabadhacayay digniinaha mas-uuliyiinta ugu sarreysa Yurub ay u digayaan shacabkooda si ay markaa ugu diyaar garoobaan dagaal markaa Yurub iyo ka dhex qarxa iyo Ruushka. haddaba hadallo ay jeediyeen madaxda Yurub ayay shacabkooda uga digeen, iyagoo markaa u sheegaya sida ay qortay jaridda Wall Street Journal ee laga leeyahay waddanka Mareykanka in afgaranwaaga Yurub iyo u dhaxeeya iyo Ruushka uu markan marayo heerkii ugu xumay. waxaana la sheegayaa sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Jarmalka in Putin hadda uu bilaabay tallaabooyinkii uu sameynayay Hitler sanadku markuu ahaa 1938 oo uu meelo ka mid ah markii hore ku qabsaday Yurub kadibna uu ku sii fiday Yurub uu ku sii faafay. halkaa marka waxaa ka jirta khatar. madaxdii Yurub marka way baqayaan, dadkoodii waxay leeyihiin ogaada dagaal dhici kara markasta, xaaladdu waa ka halkaasay maraysaa. weliba ninkii Jarmalka ahaa ayaa wuxuu leeyahay odagii Jarmalka ahaa ee Hitler ee adeerkiisa ahaa Yurub siduu ku qabsaday ayuu wuxuu leeyahay Putin uu nagu soo wadaa. odagan wuxuu yidhi Jarmalka Hitler ahaa marka hore meeluu ku duulay wax yar uu qabsaday Yurub oo dhan, kadib uu Yurub oo dhan qabsaday. ninkan 1938 maskaxdii Hitler meeshay joogtaa midda Putin maanta joogtaa uu leeyahay. hawshaas marka halkaasay mare. dhanka kale waxaa la sheegayaa Yurub inay leeyihiin ciidan nabad ilaalina oo amniga Ukraine ilaaliya. haddii la heshiiyo Ukraine ha la geeyo, ciidanaa geenaynaa gudaha Ukraine. intuusan ninkaana soo aadin ayaynu meesha caratuura samaysanaynaa ay dheheen. caratuur dowladihii Yurub ugu waaweynaa waxay leeyihiin damaanad in la helo waayo Yurub ay ku seexato Ukraine ku seexato. macalinka weyn adiguna kor kala soco, ciidankan annagaa geenaynaa gudaha Ukraine. haddii la heshiiyo heshiiskan hadda socday waa waantan la isku afkarto Ukraine iyo Ruushka si uusan Ruushka mar kale Yurub usoo weerarin. halkaasaan caratuurka samaysanaynaa. caratuur mataqaanaan marka intuusan biyaha kusoo gaarin carrada marka meeshaasaa geenaynaa. nimanka marka Yurubiyanka cabsidii wareerkii walwalkiyaa kusii badanay. walle Ruush waa laga baqay. barnaamijkeena qodobkaas ayaa ugu dambeeyay. fakari aragti waxaad haysana noo soo qor asxaabay, like gareeya oo share gareeya. maanta waxay ahayd sidaa la socotaan talaado channelkayga kale qisooyinka Nadaara 2 waxaanu kusoo gudbinay qiso cajiib ah. dadka qisada jecel iyaguna halkaa ayay ka daawan doonaan. intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.